muqdisho waxay arkaysaa farshaxankeedii oo dib u dhashay hadda oo kooxdii mintidka ahayd ee al-shabaab laga saaray magaalada. farshaxanleyda halkan jooga xarunta cilmi baarista ee CRD waxay sheegayaan in ay ahayd in si qarsoodi ay u shaqeeyaan waxaana ciqaabi jiray mintidiinta. al-shabaabku waxay aaminsan yihiin in farshaxanku uu xaaraan yahay oo uu diinta islaamka mamnuuc ka yahay. laakiin markii laga adkaaday farshaxankii dib ayuu u soo noqday. intaas intii ka horraysay xirfaddooda dadka umaanay soo bandhigi karin. guryahooda xataa kama aanay soo bixi karin. hadda shaqadoodii bannaanka jidadka ayay soo dhigeen iyaga oo ku gaarsiinaya shacabka fariintooda siyaasadeed boorar waaweyn oo ay ku qoran yihiin halkudhegyo cadaalad, sharci iyo sinaan. waxaana u muuqataa in fariintoodu shaqaynayso. waxaan u fahmay sharciga dadka oo dhan u siman. haddana markii aan sii fasiray ninka meesha la wado booliska ay wadaan waa nin weyn oo mas'uul ah xoolana wato markaas lagu soo qabtay waana nin da'a marka asagana waa la qaban karaa nin kastana waa la qaban karaa saasaan u fahmay. iyadoo haddaba farshaxanka muqdisho uu si tartiiba cagihiisa isugu taagayo ayaa waxa uu ka tarjumayaa niyad wanaagsan iyo rajo mustaqbalka Soomaaliya oo dhan. waxaa lagu sawirayaa nin oo geedkii maaragtay carro ku shubaayo iyo biyo iyo naag waraabinayso. geedkii waxaa la abuuray oo macnaha dawladda rasmiga ahayd. marka sidaasaa dadweynaha loogu soo bandhigayaa dawlad adag.